kooxaha Elman iyo Horseed ayaa galabta ku balansan garoonka weyn ee Engineer Iriso Stadium ciyaar qayb ka ah horyaalka Somali Premier League. Kooxda kubadda cagta ee Horseed ayaa horyaalka xil ciyaareedkii tagay waxaa looga qaaday 2 dhibcood waxaana ay doonayaan in xil ciyaareedkan ay ku guuleystaan horyaalka. Sidoo kale kooxda Jaalayaasha waxa ugu dambeysay in horyaalka ku guuleystaan 2012 sida loo dhigay cooska macmilkaana kuma guuleysan horyaalka waxaana ay rajeynayaan in xil ciyaareedkan uu u noqdo xil ciyaareedkooda ugu horeeyay ay ku guuleystaan marka loo eego cooska macmilka. Kooxda kubadda cagta ee Elman ayaa kulankii ugu dambeeyay waxa ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Rajo waxayna kaga adkaadeen nus dersin gool ah 6 gool iyo gool ayana ciyaartaasi ku soo ilaatay halka kooxda Cawe iyo Maalin iyo Horseed ee barbardhac la gashay kooxda kubadda cagta ee Dekadaha. Haddaba dhalinta ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay kulankan adag ee Horseed iyo waliba kooxda kubadda cagta Elman. magacaygu Bilaa Cabdifatax Bilaa Shariif waxaa taageero weyn u ahay Horseed iyo Elman ciyaartu waxay ku soo dhamaan doontaa 2 gool iyo eber oo kubadda doonta Horseed. magacaygu waa Muuse Cali Cabdi waa taageero weyn LBBJ hadaa saadaliyo kulanka u dhaxeeya Horseed iyo Elman laba ay ku dhamaanay insha Allah. magacaygu waa Cabdicasiis Mukhtaar Aadan kulanka galabta hadaa saadaliyo Elman iyo Horseed ayaa waxa ku adkaan doonta LBBJ. magacaygu waa Maxamed Axmed Meer Makraan waxaan magac dheerahay Sergio Aboni waxa saadaleen sheegay Horseed waxa ku badin doonta 3 iyo ani waxa taageeray sheegay Horseed. Assalaamu calaykum magacaygu waa Faisal Maxamed oo degmada Wadajir waxa taageera Elman waxa uu rajeynayaa maanta insha Allah gool 2-1. magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir Maxamed kulanka weyn ee Elman iyo Horseed waxaan ku rajeynaa kooxda Elman 3-1 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجيء عبد القادر نور محمود أو كما عدير دادري هوا وتغيير إلمن أو سولة شغل مادين إلمن وحاليا هاي ساحة سبورتس كوحلاقة برتي وعذرا عادي هن رصيد إلمن كنتي إلمن وحرجينا إن شاء الله سيدي أنا وبرني إن معنيه وعذرا أو حسوس ضد بدن أو كيالا دونت إن سمعت دونت إن شاء الله وحن كوسا علينا كلن كاس 2-1 ee Elman ku adkaa doonto maadaama naadiga aan ogahay xawaasheeda iyo xaaladeeda ka warhayo waxaan rajeynayaa 2-1 inaan micnihiisa ku lagdi doono kooxda dhigeena insha Allah saasaan rajeynaynaa. magacaygu waa Iskariin Guulad Axmed markooda waxaan jeclahay Horseed inay guush qaadato weyn aan rajeynaa 4-0. kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinta ku dhaqan Muqdisho oo ka aragti dhibanayay kulankan adag ee Elman iyo waliba kooxda kubadda cagta Horseed. Axmed Daawud Barre, Goal FM.